magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalintii labaad waxaa soo gaaray ciidamo ka socda Midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo lagu wada inay sugaan amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. ciidamadan ayaa Cadaad waxaa ku soo dhaweeyay saraakiil ka kala tirsan nabad sugidda qaranka iyo militariga Soomaaliya iyo sidoo kale madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. General Cismaan Nuur Subagle taliyaha guud ee ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM oo shalay soo gaaray magaalada Cadaad ayaa sheegay in ciidankan ay ka shaqeyn doonaan sugista ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. Imaashaha AMISOM ee Cadaad waxay ka mid tahay mandate-ka aan leenahay UN iyo African Union-ku ay u jeexeen AMISOM inay ilaaliyaan habka doorashadu ay u dhacayso ee Soomaaliya. halkanna doorasho ka dhacaysa. sidaa darteed bay AMISOM u timid halkan inay ilaaliso si nabadgelyo halkan ugu dhacdo isla markaana ay marxaati ka noqoto hab wanaagga ay u socdaan hawlaha doorashadu. Maxamed Xaashi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo dhankiisa ka hadlay ciidamada soo gaaray Cadaad ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugista ammaanka doorashooyinka isla markaana ay Galmudug kala shaqeynayaan dhinaca ammaanka. ciidamada AMISOM waxay u yimaadeen inay qayb ka noqdaan nabadgelyada iyo maaragtay horumarka deegaanada Galmudug gaar ahaan degmada Cadaad. runtii waxay ka shaqeyn doonaan sidii amniga u sugi lahaayeen dhammaan degmooyinkan oo dhan. waxay ka shaqeyn doonaan maaragtay inay ammaanka sugaan xarumaha doorashada ka dhacaysa iyo meelaha loogu talagalay oo dhan. runtii waa ciidamo xoogaa waxaan kala geynay meelo kala duwan welina waa soo socdaan maaragtay qaybaha dhiman oo imaan doona haddii la yiraahdo. waxaan rajaynaynaa amniga sida loogu talagalay inay u qaban doonaan si fiicanna u qaadan doonaan insha Allah. marka doorkooda muxuu yahay ciidamadan? ciidamadan doorkooda waa sugidda amniga iyo maaragtay kala shaqeynta horumarka Galmudug maamulka Galmudug haddii la yiraahdo. waa tahay xilliga doorashada kadib ma joogayaan mise waa laabanayaan? runtii sida aan ognahay ama aan la soconaba waa joogayaan insha Allah. inay sii nagaan doonaan in kalena maaragtay waa arrimaha dadaal ka soo sheegi doonaa insha Allah. Maxamed Maxamuud Awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaad.